Jubbaland oo war ka soo saartay shaqaaqadii ka dhacday Kismaayo madaxweynaha Soomaaliland oo la kulmay madaxweynaha cusub ee loo doortay komishanka booliiska dawlad deegaanka Soomaaliyeed oo booqasho ku jooga gobolka Ereer toddobaadka iyo dhextaalka wararka aniguna waa Libaax Barqiye wax yar kadib aynu isku soo laabana saaxiibayaal afhayeenka booliiska Jubbaland Dame Shukri Faarax Ducaale oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay shaqaaqadii maanta ka dhacday magaalada afhayeenka ayaa xaqiijiyay in israsaasayntii saaka ka dhacday Kismaayo uu ku dhintay hal askari oo ka tirsanaa ilaalada musharaxiinta dhankoodana ay ka dhaawacmeen laba askari Shukri Faarax ayaa falkan ku eedeeyay musharaxiinta mucaarad wuxuuna sheegay in gaarigii ay wateen ilaaladu rasaas ku fureen ciidanka kadib sidaasi ku bilowday dagaalku haddaba wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda magaalada Kismaayo ayaa haatan degan kadib markii saaka ilaalada qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradku ay isku dayeen in ay xoog ku galaan hotel ku yaalay magaalada hotelka iyo ilaalada musharaxiinta ayaa israsaasaynay ku dhex martay hotelkaasi iyada oo hal qof uu ku dhintay shaqaaqada laba kalena ay ku dhaawacmeen xaaladda ayaa haatan ah mid degan iyada oo si weyn loo adkeeyay amniga magaalada dhinaca kale musharaxiinta xilka madaxweynaha ayaa maanta qaadan doona shahaadada musharaxnimada madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay madaxweynaha cusub ee dhawaan loo doortay Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro kulankan oo ahaa mid salaan iyo xog waraysi ah ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin sare oo ay ku jireen shirgudoonka labada gole ee baarlamaanka guurtida iyo wakiilada iyo gudoomiyaha maxkamadda sare madaxweynuhu waxa uu madaxweynaha cusub la wadaagay talooyin iyo xog ku saabsan xilwareejinta maamulka iyo sidii loo xoojin lahaa isbeddelka hufan ee hogaaminta Soomaaliland labada mas'uul ayaa sidoo kale ka wada hadlay arrimaha muhiimka ah ee mudnaanta u leh Soomaaliland sida amniga horumarinta dhaqaalaha iyo dardargelinta siyaasadda gudaha iyo dibaddaba haddaba doorashadii isasaarka ahayd ee ka dhacday 13 Noofambar 2024 oo uu ku guuleystay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro waxaa la filayaa in xafladda xilwareejintu ee madaxweynenimadu ay dhawaan ka dhici doonto magaalo madaxda Soomaaliland komishanka booliiska dawlad deegaanka Soomaaliyeed Generaal Cabdi Cali Siyaad ayaa kulan wada tashi ah la yeeshay odayaasha iyo waxgaradka deegaanka Xamaro ee gobolka Ereer waxaana kala qayb galay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Ereer Injineer Cabdilaahi Shaafi Maxamed gudoomiyaha degmada Xamaro iyo komishanka booliiska gobolka Ereer ujeedada kulankan ayaa ahayd wada tashi iyo isxog waraysi ku saabsan nabadgelyada iyo sidii si wada jir ah looga wada shaqayn lahaa ilaalinta ammaanka deegaanka odayaasha iyo waxgaradka degmada Xamaro ayaa soo jeediyay talooyin wax ku ool ah oo lagu xoojinayo wada shaqaynta waxa ayna ballan qaadeen inay la shaqayn doonaan ciidamada booliiska intaas kadib mas'uuliyiintu waxa ay booqdeen magaalada Xamaro halkaas oo ay nasasho iyo kulamo gooni ah kula qaateen bulshada inteeda kale warkeeni maanta halka haynoo jooga inta aynu ku kulmi doono kan ka xiga hadii eebba idmo